Daniel Berhane waxa uu guuldarro ku tilmaamay guddigii doorashada ee dalka Soomaaliya in ay ka gaabiyeen oo ayna shaqadoodii qabanin saraakiishii la socotay ee faragelinta ku haysay ee ka socday sirdoonka dalka Itoobiya. waxa uu leeyahay Daniel Berhane waxay ahayd ceeb iyo weji gabax foolxun oo ay Itoobiya kala kulantay Soomaaliya. waxa uu hadalkiisa ku sii darayaa oo uu sii leeyahay culayskii ama miisaankii ay Soomaaliya ku lahayd dawladda Itoobiya waxa ay noqotay mid meesha ka baxday oo raacday isagoo hadalkiisa saa u dhigaya outgoing president madaxweynaha hadda talada haya ee xilka ka degay wali dastuuriyan waxa weeyaan madaxweynuhu waa Xasan Sheekh Maxamuud. marka waxa uu leeyahay madaxweynaha hadda talada haya ayaa culayskii ay dawladda Itoobiya iyo miisaankii siyaasadeed ay ku lahayd Soomaaliya u raaci doonaa. Daniel Berhane waxa uu sheegayaa in musharaxiinta kale dhammaanba musharaxiintii kale ee u tartamay jagada madaxtinimada ee dalka Soomaaliya ahaayeen kuwa la macaamili karay dalka Itoobiya. waxa uu leeyahay ma aha waxa la qaadan karo oo la aqbali karo in uu ka buuxo nacayb Itoobiyaanimo isagoo ula jeeda madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Soomaaliya mar kale dib u xukumo. waxa uu leeyahay waxay ahayd wax aynan soo dhaweynin oo ay ka xumaadeen dhammaanba shucuubta dalka Itoobiya. hadalkaas waxa weeyaan waa in dadka dhan ay u fiirsadaan. waxa uu leeyahay as a result, the electoral campaign turned it into anti-Ethiopian rhetoric and made our citizens there uncomfortable. Walau fiirsada. halkaas waxaa kaaga cad in dadka Etoobiyaanka ah ay yihiin suxufi, siyaasi, sirdoon, madaxweyne, ra'iisul wasaare iyo shacab kuwa ka siman nacaybka iyo cadaawadda ay u qabaan dadka Soomaaliyeed. waxaa cad oo aan la iska indhatiri karin in Soomaaliya ay gashay aflibaax. mana aha markaan leeyahay Soomaaliya aflibaax bay gashay dadka Soomaaliyeed ee xorta ah oo kaliya. dawladda Itoobiya waxay horay u sheegtay inay ku rajo weyn tahay in dalka Djibouti ku soo biiri doono Itoobiya. waxa kale oo ay sheegtay in dadka Soomaaliyeed ee xorta ah ay ka mid noqon doonaan waxa la yiraahdo Soomaaliya oo ah Itoobiya. marka laga reebo inta yar ee la yiraahdo NFD ay haysato dalka Kenya, Itoobiya waxay rajaynaysaa inay xukunto dhammaanba dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.